inanta halkan ka soo baxaysa waa inan caanka dalka Turkiga waxaana inta badan ay matashaa filimada jacaylka magaceedu waa Handa waxay ka mid tahay hablaha ugu quruxda badan dhinaca filimada dadyo fara badan oo caalamka ku nool ayay inta badan ka yaabisay quruxda inantani Handa waxay ku soo caanbaxday filmo kala duwan oo jacaylka qaabka loo matalaya laakiin sida la sheegay waa inan ay hablaha kale neceb yihiin dalka Turkigu waxaana laga ilaaliyaa ragga xaasaska inay filmaan la matalaan Handa waayo waxa la yiri waxay xoog u taqaanaa qaabka qalbiga loo weeraro ama markaba loo qabsado dadka aqoonta u leeyahay waxay yiraahdeen Handa waxay taqaanaa qaabka ragga loo kala bedelo sida shaarka oo kale haddii Handa aad filin la matashid ama aad filin la gashid waxa macquul ah inuu jacaylku ku dhacayo kabacdina aad ilaawi doontid waxyaabo tiro badan filimada Turkiga ayaa saameyn weyn ku reebay caalamka oo dhan markii ay la soo galeen dardarta aktarnimada iyo dardarta quruxda labadaba Handana qayb weyn ayay ka tahay dadka quruxda caalamka la soo galay sida la sheegay mar ay ku guuleysatay quruxda welina sidii ay u qurux badan tahay oo dadyo fara badan ayaa jecel qaabka ay wax u matasho iyo qaabka quruxdeeda alla u dhigay ninkan magaciisu waa Zlatan Ibrahimovic waa ciyaartooyga weyn ee caalamka caanka ka ah marka uu wariyo wareysanayo inta badan Zlatan Ibrahimovic waxa uu soo celiyaa jawaabo la yaab leh oo ay dunidoo dhan la yaabtay wariyo waxa weydiiyay maalin maalmaha ka mid ah waxaad joogtaa magaalada Paris waxaadna degan tahay hotel oo weli laguma dejin guri goorma ayaad isleedahay guri baa lagu dejinayaa Ibrahimovic waxa uu yiri haddii guriga lay waayo hotelka laftirkiisa aan ku jiro ayaan iibsanayaa maalin kale ayaa la weydiiyay inta badan ragga xaasaska ah dumarkooda waxay u geeyaan hadiyado adigu xaaskaaga maxaad hadiyad u geyn lahayd waxa uu yiri gabadh haysata Zlatan Ibrahimovic kan hortiina fadhiya ma hadiyad ay u baahan tahay waxa uu ka waday anoo sidan u qurux badan haddii ay hantiday ama ay yeelatay hadiyada kale ee ay u baahan tahay waa maxay maalin kale ayaa la weydiiyay koobka adduunka doorkan waad ka maqan tahay imkana waa la qabanayaa bal ka waran sidee ayuu noqon doonaa waxa uu yiri idinka ayaan weydiiyay koobka adduunka ee uu ka maqan yahay Zlatan Ibrahimovic ma koob aad daawataan ayuu idin noqon doonaa haddana wariyuhu maalin kale waxa uu weydiiyay nabar ayaa wajiga kaaga yaala nabarkaasi muxuu ahaa waxa uu ku yiri Zlatan Ibrahimovic intaanad anigii weydiin xaaskaaga soo weydii Zlatan Ibrahimovic ayaa inta badan wariyaashu ka baqaan waayo marka ay su'aal weydiiyaanba waxa uu keenaa wax ka yaabiya dadku waxay u yaqaaneen inuu xaraabeynayo laakiin dadka qaar ayaa og inuu yahay nin qab weyn هذا وقد شوهدت الدبابات الأمريكية صباح اليوم وهي تتقدم نحو مبنى وزارة الإعلام العراقية وسط العاصمة بغداد بعد أن شنت الطائرات الأمريكية في الساعات السابقة قصفا جويا مكثفا وعنيفا على المنطقة التي تقع فيها وزارة الإعلام العراقية. كاني ومحمد كراشان ووريو وين oo ka tirsan TV-ga Al Jazeera sanadku markuu ahaa 2003 subaxii waxa uu soo deynayay warka markii habeenimidkii la xasuuqay dalka Ciraaq waxaana uu yiri habeenkii xalay ahaa Mareykanka ayaa xasuuq u geystay dalka Ciraaq waxa uu ku gumaaday diyaaradihiisa waxaana uu laayay dadyo fara badan Maxamed Karashaan markii warkaas soo deynayay labadiisa indhood oohin ayaa ka daaysay oo uu soo deyn kari waayay warka isagii ooyay ay soo fadhiistay shaashada hortiisa waxaana uu ku ooyay dalka Carbeed ee xasuuq u geystay dawladda gaalada ah ee dalka Mareykanka